madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo salaadii jimcaha kadib hadal kooban ka jeediyay masjid ku yaala gudaha madaxtooyada ayaa ka hadlay howlgalka ciidanka qalabka sida ay kaga xoreeyeen kooxaha nabadiidka deegaano ay ka joogeen qaar ka mid ah gobolada dalka. madaxweynaha ayaa ku ammaanay ciidamada tallaabooyinka ay qaadeen oo uu sheegay in ku fashiliyeen gawaari waaweyn oo ay rabeen argagixisadu inay ku guumaadaan shacabka ku nool caasimadda. baryahan dambe saad maqlaysaan ciidamadeenu waa howlgaleen dhowr bare iyo ka qabteen cadowga maxaan ku raahdaa argixisada ah khawaarijta ah oo ay ka soo gudubsadaan waxyaabaha qarxa. waa inaan u hambalyeeno ciidamadeena qalabka sida haddii shacabku uu gacan siiyo ciidamada qalabka sida inaan si yar aan uga guulaysan karno. intan ay nooga laayeenna dagaal noogama layn lahayn waa xaqiiqa. inta shacab ay laayeen inta ay laayeen maxaan ku raahdaa caruur iyo ciroolaba dagaal noogama layn lahayn xaqiiqo weyn. maxaa yeelay hadda howlgalladii la sameeyey hal qof noogama dhiman waana laga eriyey aagagii ay fadhiyeenna waa laga qabsaday. madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in amnigu uu furo u yahay horumarka iyo nolosha dalka isagoo shacabka ka codsaday inay ciidamada garab istaagaan isla markaana loo midoobo dagaalka kooxda al-shabaab. amnigu waa aasaas nolosha bini aadanka iyo horumarkiisa ah. waxa weeye hadduu dalku uusan amni lahayn ma filaysid in horumar laga hadlo, ma filaysid in nolol laga hadlo, ma filaysid wax walba waa istaagayaan. waxa weeye saldhigga bini aadanka waa nabadda weyn. cadowgaasi dowlad uma socdo marka inaan u wada midoowno kulligeen marka hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay mas-uul iyo hadduu yahay culamo iyo hadduu yahay ururada bulshada in dadkaasi aan la wada dagaalno oo aan loo daynin dagaalkooda. ciidamada qalabka sida waxa weeye waa inaan u mahad celinno, waa inaan u hambalyeeno ciidamadeena qalabka sida dadaaladii ay ku jiraan. shacabka Soomaaliyeedna waxaan ku boorinayaa inay garab siiyaan qof walba oo Soomaali ah inuu garab siiyo. ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ayaa howlgallo ay ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose waxa ay ku burburiyeen xarumo iyo gaadiid loo diyaariyay waxyaabaha qarxa oo ay gacanta ku hayeen kooxaha argagixisadu. Ali Baasha Cabdullaahi, warbaahinta qaranka, madaxtooyada Soomaaliya.